السلام عليكم. soo dhawaada channelkini Shani Beauty waana shukriya and maanta waxaan soo noqday videogan xaraba inaan kaga jawaabo su'aal ay soo weydiisay walaashay gabar aqaali su'aasha hoosta commentarka igu soo qortay maxaad timaha dhaqaalaha timaha nooga hadal walaal horta waxaan rabay inaan dhaqaalaha horta aan ka dhigo fikrad ahaan waan fikiray inaan kolkaaba sheegaani waxana ii nasiibay amba saasano isticmaalaa amba saasi wax u jirtaa mee waxaan ka jeclaysto waxaasoo dhan inaan horta maxay heedanay ta u horeysa aan nila qaybsado dhowr yaro fikradood oo ah ku saabsan dhaqaalaha timahayna maxay heedanay aniga wixii aan shakhsi ahaan san maxay heedanay wixii iga soo gaadhay sidaan wax u arkay haddaba waxaa jiray aniga caadi ahaanta sanado imika 10 sanadood ka soo xigta haddii bay ka badnayn waxaan dareemay timahayga inay isbedelaan timahayga caadi ahaanta ani ah timo natural loo yaqaano oo dawo jilicso ma baahnayn maxay heedanay gasma lahayn ma daadanayn haddaba sanado kadib kolkan wadanka Faransiiska yimidee sababtoo ah tacliina oo yimidee Djibouti baan ahaa kolka maxay heedanay waxaan dareemay inay marxaladii siba iska bedeshay timihii ay isbedeleen ay nafaqadoodii xumaatay ay cawlaadeen fal xumaadeen daadadaba waxa weyn sida dadka dumarkeena oo dhan waxaan sameeyay inaan raadayo shampooga ugu qaalisan irbadii vitaminka lagu jabinayay waxyaabo saasa oo lacag badan iga baxay run ahaan iyagoo kolkaad waxaasoo kale isticmaalaysid waxa weyn muddadaas adigoo qurxaaneen amba udgooneynayaan mee run ahaan ay ka bedilaan way yar tahay waxa weyn kolkaad joojisid dib ayay iskugu soo maxay heedanay sidoodii ku soo noqonayaan haddaba su'aashu waxa weyn maxayse ugu soo noqonayaan waxa weyn inaan fahano horta maxay heedanay inaga horta waa inaan fahano timaheenu maxay isku bedileen maxaa ku dhacay jawigan ku noolnahay maxaa ku jirtaa ma xilli waxaa ku jirtaa naftaada ay tahay walwalku ku badan yahay buuq ku badan yahay may aad wadan kale iyo jawi kale iyo aad ku jirtid waqti kale ku jirtid sababtoo ah waxyaabo badan saameyn kara jirkeena iyo caafimaadka timaheena iyo jirkeenaba kalka oo wax kasta waxyaabaha saasa way ka soo muuqan karaan mis simplement waxaa jira kalkala sida maamo oo uurlo oo kale timo way ka daadan karaan maxaa la dhahayay qof caafimaadka sida maxay heedan waxaa jira xanuun Soomaaliyeed badanka ay ka hadleen oonana niga hadli doono insha Allah oo la yiraahdo thyroid bay u yaqaanaan af Ingiriisi oo maleen oo timaha iyaguna wax ka dhima aad u saameeya waxyaabo badan jira kolka waxaan nugula talin lahaa horta videogan ina qofka aad fariisatid oo istiraahdid timaha timahayga waxaan rabaa inaan kobciyo biiriyo dhaqaaleeyo waa caadi waa maxay heedan waa loo baahan yahay laakiin maxaa la dhahayay inta ka hor inaa caafimaad ahaan eegtid maxay heedan timahaagu maxay sidan u yihiin haddii ay tahay basdee timahaygu weligeyba way yaryaraayeen oo inaan kobciyaan rabaa waa suurtagal waxyaabo badan jiro lagu caawin karo maxay heedanay dad badan keena waxa weyn waxaanu kolkol ku jirnaa jawi amba hawo amba waqti amba maxay heedanay keenaya inay timaheenu daataan inay sidii hore noqon waayaan inay cawlaadaan inay dhibaatoodaan
ay jirkeena maqaalkeena iyo timihiinaba kasoo muuqanaya kolkaas ahaan waxaa loo baahan yahay inaa wixii amba stresska iska yareysid oo siyaabo stresska loo yareeyaa jira amba sugtida joobiga intaad ka baxaysid oo maxay ahaydeen joobiga la gashi sida hooyada kolkay dhasho kadib timihigii aad ay kusoo noqonayaan adiga waxyaabo saasaa jira kolka maxay ahaydeen videogan intaas inaan la qaybsadaan rabay oon idhaahdo anigaba joogi kale waa isoo martay oo timahayga aad u xumaadeen anigana lacagteeda ku khasaariyey saasaan u arkay kalkii dambe sababtoo ah sanadadii kadib waxyaabo badan adi waa isbedilayaan waan fahmay timahayga inayn waxay u baahnaayeen aynan ahayn inaan shampoonka ugu qaalisan amba irbad ku jabiyo amba aynan ahayn kolkaas ahaan idinkan waxaan rabay inaan idhaho kow ta u horeysa waa inaan fahno wixii keenay inay timiheenu ay xumaadaan amba sidii aynan u ahayn sidii hore aynan ahayn amba dhaqaalahoogu ama maxay ahaydeen hoos uga soo dhacaan kadibna aan keenno xalkii kadibna iyaga iska qurux badnaan doonaa waxyaabo kaloo lagu caawinayana way jirtaa waxyaabo kaloo lagu qurxinayana way jirtaa kolka dib baan uga wada sheekaysan doonaa su-aashii imika intaasaan kaga jawaabi insha allah video kale aan kusoo noqon doonaa aan ku tusi doonaan siyaabihii wixii i caawiyey iyo sidii ay noqdeen insha allah assalaamu calaykum subscribe like share wakaas isku soo noqdo wanaagsan waxaan ka filaa inaan maxay ahaydeen in yar ka jawaabay su-aashaadii walaal qaali maxaa la dhahaayey insha allah waan isku soo noqon doonaa videoyo kalaan samayn doonaa aan goro bani soo bandhigay ani wixii inaasibay iyo sidii aan maxay ahaydeen uga baxay jajabkii amba cawlidii amba falxumadii ay ahaayeen inkastoon maantadan aan kula hadlayo timahaygu sidii ay ahaayeen sanadka hore amba 2 sanadood aynan ahayn oo imika wax yar ka dhaceen laakiin ay weli iska fiican yihiin insha allah waan kula qaybsan doonaa wax kaste halkan iskala soconaynaa intaas kusoo noqonayno waxaan rajeeyaa waa like subscribe haddana weli familiga Shani Beauty aanad ka mid ahayn inaad kusoo biirtid dadka Shani Beauty team Shani Beauty kusoo biirtid haddaa weli ka mid ahayn subscribe deh nagu soo biir soo dhawow shaar gareeya kolkaas waa kaasi